السلام عليكم ورحمة الله. maanta waxaan barnaamijka ku soo qaadan noolayaasha uu Ilaahay abuuray qayb ka mid ah oo siyaabo cajiib ah u shaqeeya. Cayayaankan oo iglaamaha ama caleenta geedaha ayay adag tahay in la arko markuu geedka saaran yahay, taasoo keenta in shimbiraha iyo xayawaanada kale ee cuni lahaa ay arki waayaan oo sidaas ku badbaado. Waxaa kaloo cajiib ah in cayayaankan uusan ukuntiisa daryeelin oo waxaa shaqadaas u qabta quranjada. Ukunteeda ayaa waxay ku turtaa dhulka. Quranjo ayaa markaas qaadanaysa oo godkeeda geynaysa halkaas oo ilaalo ka ilaalisa khataraha dibadda ukuntaasi ay ka helayso. Quranjada ayaa waxay sidaas u samaynaysaa. Ukuntaas afkeeda waxaa ku dhagan maado subag oo kala ah oo soo jiidata quranjada si ay godkeeda u geyso. Oo cayayaankaasi markaasi si nabad ah ugu dhex korayo quranjada godkeeda ilaa uu ukunta ka soo dhex baxo oo markaas doonto geed uu ku koro oo uu ku noolaado. Cayayaankan kaliya maaha mid ilmihiisa cid kale ay u koriso. Kan waxaa Ingiriiska la dhahaa blister beetle oo waxa uu soo sii daayaa maado kiimika ah oo jirka markay taabato nabarro u geysata. Waana meesha uu magaceedu ka yimi. Cayayaankan ayaa ukuntiisa intuu god ku dhalo uga taga. Marka ay ukunta ka soo baxaan ayaa waxa ay koraan laan sare iyagoo iswada raacaya. Haddaba waxa ay sidaas u samaynayaan ayaa ah arrin cajiib ah. Waxa ay u soo urayaan sidii dhediga nooc ka mid ah shinnida oo kaligood nool. Shinniyada noocyo ka mid ah ayaa kaligood nool oo aan kooxo u noolayn. Haddaba shinnida labka ayaa soo aadaya cayayaankii yaraa isagoo u malaynaya inay shinni kala tahay. Markaas ayay cayayaankii yaryaraa dusha ka korayaan. Hadhow markii shinnidii ay la socdeen ishelaan mid dhedig ah ayaa cayayaankii yaryaraa waxa ay ku wareegayaan shinnida dhediga ah. Hadafkooda ayaa waxa uu ahaa in markii shinnidaasi ay geyso godkeedii ay ka buuxisay miidda ubaxyada ay soo aruurisay iyo ukunteeda ay halkaasi uga degaan. Haddaba cayayaankaasi waxa ay cunayaan cuntada ay shinnidu ugu talagashay ukunteeda. Markay cuntadaasi dhamaatana ukuntii ayay u soo jeesanayaan oo ay cunayaan. Abeesada tan waxa ay ku nooshahay Iiraan. Ugaarta ay cunto waxaa ka mid ah shimbiraha. Marka su'aal baa imaan karta, abeesada tani sidee ayay shimbiraha iftiinka maalintii u ugaarsataa soo kama cararayaan oo ma duulayaan? Jawaabtu waa in abeesada tan ay dabadeedu u eg tahay sidii caaro oo kale. Markaas ayay dhaqdhaqaajisaa si ay shimbiruhu caaradaas u cunaan. Laakiin markii ay shimbirtu istiraahdo waxa ay caarada u maleynaysay cun ayaa abeesadaasi ku soo boodaa oo ay qabsataa markaasina cuntaa. Xayawaankan ayaa waxaa la dhahaa koala waxa uuna ku nool yahay waddanka Australia. Sawirka farihiisa ayaa wuxuu aad ugu eg yahay kan dadka oo kale oo aan laga garan karin xataa marka microscope lagu fiiriyo. Waxaa isku daydaa inaad sheegtid labadan sawir keebaa ah kan dadka keebaasa ah kan xayawaankaas koalaha. Xayawaano badan ayaa la ogaaday in la suuxin karo ama la gam'in karo waa waxa loo yaqaan hypnotism. Xayawaanadaas waxaa ka mid ah digaaga iyo xaaska, qooleyda iyo kuwo kale oo fara badan. Markii ficilo gaara lagu sameeyo ayay dhaqdhaqaaqa joojiyaan oo u ekaadaan wax suuxsan ama hurdo oo kale. Digaaga ayaa sidan loo suuxiyaa. Dhulka intii la dhigo ayaa qori oo kale la soo qaataa, markaasaa lagu xariiqaa indhahooda hortooda. Markii gacanta laga qaado, digaagadaas muddo ma dhaqdhaqaaqayso oo sideedii ayay ahaanaysaa. Xoogaa goortii laga joogo ayay soo kacaysaa. Xayawaanka dolphinka ama humbabarada ayaa waxaa la sheegay inay awood u leedahay inay garato markay dumarku uurka leeyihiin. Xayawaankan ayaa waxa uu wax ku ugaarsadaa markay mugdiga tahay wax loo yaqaan echolocation oo ah in cod aysan dadku maqli karin sii daayo. Codkaasi markuu shay ku dhaco, jabaq celis ayuu sameeyaa oo codkii ayaa ku soo laabanaya. Markaas ayuu garanayaa in meeshaas xayawaankii uu raadinayay uu joogo. Codkaas aan dadku maqli karin oo dolphinku sii daayo ayaa waxa la dhahaa ultrasound. Waana codka cisbitaaladu u adeegsadaan in haweenka uurka leh ilmaha ay sidaan ay arkaan. Marka saynisyahano ayaa waxay dhaheen waxay u badan tahay in dolphinku kala garan karo haweenka uurka leh iyo kuwa aan uurka lahayn. Kalluunkan loo yaqaano bishin guduudane ama red lip batfish ayaa sida ka muuqata loogu magac daray bishimaha guduudan ee uu leeyahay. Kalluunkan ayaa waxa kale uu jecel yahay inuu badda hoosteeda ku socdo oo jirkiisa qayb ka mid ah ayuu sidii lugo oo kale ugu socdaa. Shimbirtan waxaa la dhahaa dorongo. Waxa ay khiyaamaysaa xayawaan la dhaho meerkat oo ku nool South Africa. Marka hore run ayay u sheegtaa oo waxa ay uga digtaa haddii ay aragto shimbiraha waaweyn ee ugaarsada xayawaankan. Halkaas ayay kalsooni ku heshaa oo marka labaad ay meerkatku maqlaan codka shimbirtan, godadkooda ayay u cararaan. Ilaa shimbirtii runta sheegi jirtay ayaa u digtay.
shimbirtan ayaa marka ay kalsoonidooda hesho la soo baxaysa khiyaanadeedii. Markii ay rabto inay ka cararaan dibqallooc ama cayayaan ay miirkaad ku qabsadeen, ayay codkii digniinta ahaa siinaysaa. Markaas ayay ka cararayaan cayayaankii ay qabsadeen. Shimbirtaas ayaa geedka ka soo degaysa oo qaadanaysa cayayaankii ay ka carareen oo geedka la koraysa halkaana ku cunaysa. Markii khiyaanadeeda lagu fahmo ayaa waxay codkeeda u ekaysiisaa mid ka mid ah miirkaadka oo uga digaya bahal soo socda. Sidaas ayay haddana mar labaad ku khiyaantaa. intaas ayaa noogu jooga barnaamijkii maanta. intii aan mar dambe kulmi doono nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaah.